فحاجة يتهاي إن الدراسة ما يقولوا intaas oo hadlaa ama haweena oo bartay sida wax loo qoro waxna loo aqriyo shalayna aan aqoonin in wax la qoro waxna la aqriyo hooyada wax barataa way ka qiimo badan tahay hooyada aan wax baran anigu markaan aad soo dardaarmaya waxa weeyaan saacadaad wax barataa xukum yeelayso jaamacad baad ka baxaysaan haddaad sidaa wado waxaa la doonayaa inaad dadaashaan oo wax barataan waxa weeyaan qofku markuu wax bartaa uu qiimo leeyahay haddii aan waxba garanaynin qiimo ma laha hooyaduna way ka xag jirtaa hooyada wax baratay way ka qaalisantay imika maalintii aad waxba baranayo maanta ma sanidin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maantay waxaynu joognaa madal aad iyo aad u qurux badan oo dabaqaysa hal qodob oo ah qodobada ilaahay yidhi إلهي بقول لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ميسمين كو أخبرتي يكو عام أخبران marka horta waxa ogsoonataan hooyooyinka halka kan jooga ama hablaha halkan jooga ee wax bartay inaanay la sineen kuwa aan waxba baran taasina waa waxaad idinkuna dheertihiin ilaahayna idin cadeeyay horta ilaahay baa mahadda iskale fursadda ay siiyay waana fursad aad u qaaliya fursadani waxay kor u qaadaysaa qiyamkii bulshada ama heerkii waxbarashada ee Soomaaliland aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa agaasimaha Sucaad oo hawl badan iyo juhdi badan gelisay waxaan rajaynayaa inta waaweyna in sida qorshuhu yahay la baro fursamada hal shay baan oo talaan idiga tagaya waxa weeye waxbarashadu ma dhamaato da kasta oo aad joogtid ama qof yar ahaw midhaamo qof weyn ahaw heerka doontid bagaar waxbarashadu ma dhamaato waxaan idinku talinayaa markaa inaad ku dadaashaan waxbarashada aydaan ka hadhin markaa waxaan idin rajaynayaa guul iyo mustaqbal wanaagsan mudane wasiiriyagaasimo guud maanta waxaa horteena fadhiya 500 oo arday oo ka kala qalin jabinaya laba qaybood oo kala ah dugsiyada loo yaqaan family life education centers ama dugsiyada barashada dhaqaalaha guriga iyo qolo kale oo ku dhigan jiray dugsiyada dawladda ama dugsiyada ummadda oo iyaguna baranay akhriska iyo qorista waxa weeyaan dadka ardayda ka baxday akhriska iyo qorista waxay barteen sida wax loo qoro sida wax loo akhriyo sidoo kale sida wax loo xisaabiyo ardayda ka baxday dugsiyada dhaqaalaha guriga waxay barteen sida wax loo qoro sida wax loo akhriyo waxa uu dheer xirfadaha ay ka mid yihiin dawaarka cunto karinta iyo makeup ama wax loo yaqaan qurxinta dumarka waxayna leeyihiin tiro 500 oo arday wasaaradda waxbarashadu iyada oo godanaysa waajibkeeda saaran ee ah inay muwaadiniinta wax bartaan qof kasta oo xil ka qabtay xukuumadda gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ifiya qarab la weydiin doono wixii uu contribute gareeyay ama halka uu gaarsiintii uu joogay oo qaranka xilka ka hayay anagoo taa ka duulayna waxa weeyaan waxaanu ku bilowna dugsiyada aan gelinka hore formalka ama waxbarashada tooska lagu bixiyo gelinka dambe inaanu uga faa'iideyno dadka intaa leeg ee qalin jabinaya waxa hawshan la fudeydinayay oo tacab iyo dadaal dheer la geliyo macallimiin iyagoo gelinka hore ubadka yar wuxuu dhigaa gelinka dambana aan wixii jirin dadkooda iyo bulshadooda wuxuu dhigi jiray cidna aan waxba ku siin jirin ilaahay miisaanka xanaad kale ku daro sida uu gudoomiyaha waxbarashada gobolka Maroodijeex uu idin sheegay horena aan uga yara wada hadalay waxa weeyaan laba qaybood baan ugu talagalay dadkan inay markay qalin jabiyaan oo qaybsamaan ardayda wixii yar yar ee waxbarashada degdega ama loo yaqaan ABga geli karaya inaan u furno fasalo ay waxbarashada ka sii wadi karaan inta ay dugsiga dhexe ka baxayaan sidaana ay u gudbi karaan fasalka koobaad ee dugsiga sare ardayda inta waaweyn waxaan uga faa'iideyn doonaa insha Allah dugsiyada dhaqaalaha guriga oo lagu wareejin doono kuna baran doonaan xirfadaha dawaarka iyo cunto karinta intii uu dhow yahay falaqyadaasi inta kalena waxaan insha Allah isku daydana inaan iyagana u diyaarino meelo falaq oo kale oo ay dawaarka iyo ku bartaan iyo cunto karinta maanta waxaan leeyahay hambaliyo aad iyo aad baan bogaadinaya Sucaad iyo dhammaan shaqaalaha waaxda waxbarashada dadbar dadaal runtii ka badan intii aan ka filinay way buuxiyeen muddo kooban oo dhowr bilood ay joogto sanad ka yar Sucaad ayay xilkan haysay
أنا مرة صعب كنت تمر جعل سعادة واحدة هي دمان واحدة شغالة وحرشات الطورة إذا كانت تجيبين معلم يسوي عليه وأفضل وحرشات هذه وحرشات هذا توم معلم بها شيء هذا هوصل على المركز حق معلم الغرزة مركز معلمين تجيبوا مركز أول عادي قاطع يصير تهود كنا هذا معلم بلا شك كل يوم مركز رتو وحي كتوسع مركز قيمة معلمكم مركز وقارنة كل يوم اللي على دولية هاي المهرجاناتي أراضي عربي يقول هاي مركز كان المعلم أن يكون رسولا وعلى السنة الأولى يا معلمك يعني قيمة وبشدة دولية هاي أنت أصلا تقول عبد المرسول صار أنت أصلا تقول أنت أصلا كم بحكي بدري أديات بردي بهذه سيد ملاحظة كلا الشيطان وحيقول سيدي قال لي أقاط من العطاء ما أنت تقول هذا الشيطان لكن في الصباح يستعمل سلاك وصوف الشن إن السي وطن أقونتي نسي كردستان وهي وطن كانت شوبنية مريد السومال لان مستقبل آدم في عملي مستقبل إفري لي هاي هرمر بعد السعودة هرمر بعد كيف هيسني يمكن كأقاط ولا كيف هيسني وكسر هرمود يقول أقاط كيف هيسني يا معلوم بين أقونتي نقرأ قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka ugu horeysa hambaliyo waxaan leeyahay ardayda qalinjabinaysa mar labaad waxaan hambaliyo u dirayaa macallimiintii wax soo bartay oo halkan fadhiya waxbarashadu ma dhamaato waana waajibna saaran nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markaad xuulka ilaa luxudka way furan tahay wax la barto kolkaa waxa weeyaan dadka daada yar ee halkan fadhiya waxaa talaa ku siinayaa إن ورثة وحبرشوا ذا سي وذان إلى أنت يسكندري كجليان كل ذي واي ما بتهن جيل الدم يجيل هربا والله نجان كرا كل كه لقى فايدة يشتو واحد لا يعني تعليت اللي جنبه جوجو وهلا برتو هلا كرسو هلا والله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.